إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro Allah u naxariistay Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf oo ku magac dheeraa Xaaji Cabdi Waraabe oo maanta salaadii Jimcaha kadib ku geeriyooday magaalada Hargeysa. xaajigu waxa uu ahaa shakhsi taariikh dheer leh, magac iyo maamuusna dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ku leh. waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ubadkii uu ka geeriyooday. waxaan leeyahay samir iyo iimaan, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. ummadda Soomaaliyeed caam ahaanna iyo qoyskii qaraabadii uu ka geeriyoodayna ha ka siiyo sabir iyo iimaan. Xaaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraabe waxa uu leeyahay taariikh dheer. waxa uu dhashay dabayaaqadii qarnigii 19aad, waqti ku siman 1896. muddadaas uu jirayna waxa uu ku lahaa magac iyo taariikh dheer ummadda Soomaaliyeed. waxa uu ahaa samatalis, nabatalis, wanaagtalis. waxa uu leeyahay qiso caan ah oo waagii qabaa'ilka Soomaalidu isdili jireen, aabihii beel ka mid ah beelihii ay jaarka ahaayeen, walaalahana ahaayeen, ay dishay. markii uu 17 jir ku dhawaaday lagu guulguulay inuu aabihii u soo aaro, laakiin taa bedelkeeda markii uu soo hoyday reerkii ninkii aabihii dilay, uu ka doorbiday inuu nabad iyo sulux iyo wanaag la qaato, reerkii la xidido, isku soo dhawaansho iyo heshiis iyo nabadgelyo ka dhex islaaxiyo, kana ilaahay idinkiisa ka dhex dhaliyo beelihii walaalaha ahaa ee uu dariska ahaa ee ehelka ahaa. 17 jir buu ahaa. waxaad garan kartaa caqligiisa iyo garashadiisa. waxa uu ahaa alla yaqaan, waxa uu ahaa dad yaqaan, waxa uu ahaa Soomaali yaqaan, waxa uu ahaa dhaqan yaqaan, waxa uu ahaa af yaqaan, suugaanyahana oo dhaqan yaqaan ah. nabadoon buu ahaa. ilaa dawladda Ingiriiska waxa uu ka soo qayb weyn oo muhiimana ka qaatay halgankii gobonnimadoonka Soomaaliyeed. waxa uu kaloo qayb ka ahaa muhiim ah yagaleelidii dawladnimada iyo ummadnimada Soomaaliyeed. dawlado fara badan buu la soo shaqeeyay ilaa dawladdii rayidka ahayd oo dhinaca wanaagga iyo nabadda uu kala shaqeeyay. dawladdii militariga ahayd oo xagga nabadda iyo isku soo dhaweynta iyo caaqilnimada uu ka shaqeeyay. intii dambana Somaliland dadkii nabadda yagleelay ee dhisay ee walaaleeyay qabaa'ilka Soomaaliyeed ee Somaliland iyo beelaha walaalaha ayuu qayb ka ahaa. xubin muhiim ah ayuu guurtida ilaa 1990kii Somaliland ka ahaa. waxa uu ahaa shakhsi magac iyo maamuus iyo sumcad iyo magacweyne ku dhex leh ummadda Soomaaliyeed. waxa kaloo la soo shaqeeyay saldanado iyo cuqaal waaweyn ilaa Suldaan Diiriye, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Cabdilqaadir, ilaa suldaanka guud ee Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir. marka xaajigu magac weyn buu lahaa. nabadda in badan buu ka taliyay, wanaagga in badan buu ka taliyay. wax walba oo dan ah oo shakhsi ah waxa uu ka doorbiday kana horreysiyay danta guud ee caamka ah. waxa uu ahaa qof wanaagga iyo wadajirka guud ka taliya, islaaxa ka taliya, suluxa ka taliya. waa qof Soomaali oo dhami Allah u naxariistay ay tabi doonto. ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan uu deegaan ahaan ka mid ahaa iyo dad reer Hargeysa iyo Somaliland iyo Soomaali caam ahaanbana ay tabi doonaan. waxaan ilaahay uga baryayaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo. qof cibaadada ku wanaagsan buu ahaa oo aan uga markhaati kacayaa. maalin khayr qabta oo Ramadaan ah oo Jimco ah buu dhintay. Allah u naxariisto, dhammaanteena ha inaga siiyo sabir iyo iimaan. waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda federaalka Soomaaliya. Allahu yarxam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.